maanta ra'iisul wasaaruhu magacaabay golihiisa wasiirada waxaan idin leeyahay hambalyo ballantii anigu aan qaaday maalintii calaamisaarka waan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kala hadlayay shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegay inaan magacaabi doono ra'iisul wasaare tayo leh oo ku shaqeeya barnaamijkii aan hore u sheegay oo ahaa in dawladdan ay noqoto dawlad aan musuqmaasuq lahayn aan khilaafaad lahayn shaqo hufan oo hoos u degtana leh hawsha maanta noo taalla waxaan isleeyahay waan aaminsanahay dadka halkan ka muuqda oo aan qaarkood aqaano inay si hufan uga soo bixi karaan hawshaas waxaan rabaa inaan dardaaran shacabka Soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba aan la dardaarmo in ay la shaqeeyaan golahan oo ay kalsooni siiyaan oo ay gacan siiyaan golaha shacabka waxaan kula dardaarmayaa iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan golahan wasiirada ah oo aan aaminsanahay inay aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba ay leeyihiin runtii ballantii aan qaaday oo ahayd in lagu soo dhisi doono 15 casho waxay dhaaftay 6 bari oo kaliya meeshii aan ognahay in lagu soo dhiso golo wasiir ay qaadan jirtay 30 casho ra'iisul wasaarena lagu magacaabo 30 casho runtii waqti badan baa runtii noo baaqday waxaan rabaa inaan waqtigan uga faa'iideysto golaha shacabka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ansixiyaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay siiyaan kalsooni iyo wada shaqeyn ay siiyaan